بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ugu horeyn waxaan soo dhaweynayaa marti sharafta maanta halka wasaaradda warfaafinta noogu timid ay ka mid yihiin wasiir ku-xigeenka wasaaradda diinta iyo awqaafta xildhibaan Sakariya madaxda ururada iyo qaybaha warbaahinta gaarka loo leeyahay iyo ururada warbaahinta Soomaaliyeed gudoomiyaha ururka haweenka Soomaaliyeed madaxda xisbiyada ku meel gaarka diiwaan gashan iyo qof kasta oo halkan maanta noogu yimid wasaaradda warfaafinta oo arintan munaasabadan aanu ku daahfurayno geedi socodka in warbaahinta dawladda laga dhigo warbaahin bulsho sida adduunku hadda u badan yahay intii nagala soo qayb gashay aad iyo aad baanu idinku mahadcelinaynaa sida la socotaan dhawaan madaxweynaha jamhuuriyadda mudane maxamed cabdilaahi farmaajo wuxuu saxeexay sharciga warbaahinta Soomaaliyeed oo ay soo ansixiyeen golayaasha qaranku ay ka mid yihiin golaha xukuumadda wasaaradda warfaafintu ay hordhigtay aqalka golaha shacabka iyo aqalka sare intuba ay soo ansixiyeen ayaa madaxweynaha jamhuuriyaddu saxeexay sharciga madaxweynuhu saxeexay waxa ku jira qodob ka 32 oo maadaama uu sharciga warbaahinta Soomaaliyeed yahay wuxuu sharcigaasi nidaaminayaa qaabka ay u shaqeynayso iyo nidaamka lagu maamulayo warbaahinta dalka oo dhan ay ku jirto midda dawladda marka qodobka 32 ee sharcigaas warbaahinta Soomaaliyeed wuxuu qeexayaa in warbaahinta qaranku ay noqon doonto warbaahin dadweyne adduunka waa la yaqaanaa boqolkiiba 99 warbaahinta adduunka ka jirta waxay u badan tahay inay dawladuhu ay maamulaan oo warbaahin dadweyne oo dadweynuhu marka horeysa u adeegta awalba waa u adeegaynay laakiin maadaama adduunku soo maray xilliyo adduunka ay ka jireen maamullo dictatora oo aan si dimuqraadi ah ku iman iyaguna waxay lahaan jireen marka warbaahin si gaar ah systemka ugu shaqeyso dadkoo dhan aan u furnayn ama talooyinka iyo fikrada kala duwan ee dalkaas dadkiisa aanay wada furnayn laakiin adduunku hadda madaxdiisa ay ku jirto Soomaaliya waxa lagu soo doortaa hab dimuqraadi ah intay doontoba systemka haynoo saamaxo wali maynu gaarin dawladihii hadda dalka soo maray in one man one vote ama one person one vote lagu doorto madaxda waa meel aan u socono laakiin intii ugu macquulsanayd ee hab doorasho ah oo qofku si tartana ku yimaado ayaa dawladaheena lagu doortaa marka qodobkaas 32 sheegaya in warbaahinta dawladdu ay noqon doonto warbaahin dadweyne oo la yaqaano warbaahin dadweyne qaabkay u shaqeyso ayaanu maanta daahfuraynaa sida la og yahay markii warbaahin dadweyne la dhahayo nidaam bay leedahay waxaa tala ku leh maamulkeeda hay'adaha dalka ay ka mid yihiin qaybaha bulshada iyo waxa loo yaqaano lobbying groupka bulshooyinku leeyihiin ama qaybaha kala duwan ee bulshada interest groupska waardiyeeya danaha kala duwan ee bulshada ayaa awood ku leh oo ay ka mid yihiin sida hadda aynu la fadhido walaashay Batuulo ururka haweenka Soomaaliyeed ururka dhalinyarada Soomaaliyeed ururka aqoon-yahaniinta Soomaaliyeed ururka lawyerska Soomaaliyeed xisbiyada ururada warbaahinta waxa soo dhan waxay ku yeelan karaan taladii wanaagsan wax kasta oo si sharciya dalkan uga dhisan hay'ad kasta oo si sharciga waafaqsan dalkan uga dhisan waxay ku leedahay toosin iyo talo iyo inay fariinteeda ay qayb bulshada kamid ah ugu adeegayso ay gudbin karto oo warbaahinta dawladda marsiin karto ayay warbaahinta dawladdu leedahay markaanu ku qornay daahfurka processka marka waxay u baahan tahay structure-keedii in la sameeyo
waxay yeelan kartaa board bay yeelan kartaa qaybaha bulshada ee aan sheegay oo tala bixinteeda iyo maamulkeeda iyo barnaamijyadeeda iyo sida ay u noqonayso warbaahin u adeegta si siman dadka Soomaaliyeed waxa ugu fiican ee danahooda ee midnimadooda ee wadajirkooda ee wadaniyadooda ahina ka baxaan dad baa tala ku yeelan doona maanta male laakiin waxaanu furnay waa dahfurnay horaan u soconayna way dhismaysaa hal sano 2 sano intii ayna ku qaadato iyadoo intaas oo dhami nagala qayb qaadanayso runtii waxaan dhihi karaa awalba annaka siyaasiyan dawladda anoo 3 jeer ka noqday wasiirka warfaafinta mar kamida wasaaradda wax la dhahaa ma jirin wasaaradda iyo wax oo dhamiba anugu buu ah aniga iyo hal secretary buu ah markaanu baydhaba joognay wasaaradda wax la dhahaa ma jirin laakiin markii dambe marba way dhismaysaa hadda wasaarad aad u xoog badan weeye hay'ado badan hoos yimaadaan warbaahinta dalka ugu awooda badan ugu qaybaha badan ay hoos timaado way for example waxay leedahay Somali 2 TV 2 channel oo TV ah leedahay Somali National TV 1 oo loogu talagalay arrimaha wararka iyo badana xooga saara arrimaha dawladda iyo wixii xooga saara iyo Somali National TV 2 oo xooga saara arrimaha bulshada xooga saara waxay leedahay raadiyo muqdisho oo ah raadiyo taqaaniin oo qadiimiya magac weyn ummadda Soomaaliyeed ku leh waxay leedahay Soona oo ah hay'adda warbaahinta maragtay Somali News Agency hay'adda qura ee wararka adduunka wararka saxa ah oo ka qaato ayay leedahay waxay leedahay joornaalka dalka oo joornaal runtii aad loo akhristo waxay leedahay website aan ka yarayn ilaa 6 oo warar lagu gudbiyo oo hay'adaha aan sheegay mid kasta leedahay waxay leedahay oo markii ugu horeysay daahfurtay warbaahin danabeed ama social media sidii TV oo kale u shaqeysa oo xoog badan ayay leedahay waxay leedahay newsroom wakiila aad u badan adduunka iyo gobolada dalka ku leh oo warbaahinta dawladda iyo kuwa kale private kuba ay naga qaataan wararka ayay leedahay waxaanu ku jirnaa satellite-da ugu badan oo 4-5 qaaradood ee adduunka laga daawado ayaan leenahay marka warbaahinta ugu xooga badan ugu qaybaha badan weeye fariinta aad gudbisaa meesha ugu dheer ay gaari karto iyadoo aan amaanayo warbaahinta gaarka loo leeyahayna inay iyaga laftigoodu ay ku jiraan TV xoog badan laakiin qayb ahaan iyo shaqaale ahaan iyo waxyaalahaas oo kale laga yaabaa inay ka badan tahay warbaahinta dawladda marka runtii madaxweynaha jamhuuriyadda waxaan ku amaanayaa inuu gaaray go'aan ah in warbaahinta dawladda aan la dhihin maragtay warbaahinta propaganda dawladda kaligeed u shaqeysa ee uu go'aamiyay inay dadkoo dhan u shaqeyso fikirada kala duwan ee wax dhisaya la marsiiyo warbaahinta dawladda dadka kala duwan ee qaybo kala duwan ninba qayb kamida sidaan hadda qaybihii aan sheegay qof kasta qayb bulshada kamida dhisaya inuu fariintiisa marsiin karo tii dawladda oo hay'adda ugu weyn ee danaha dadka Soomaaliyeed ka shaqeysana la marsiin karo runtii bini aadamka waxa la yiri wixii khayr ma sheegaan ilaahay baa yiri manaacin lil khayr mu'tadin athim wixii khayra way manaaci gareynayaan hadda markaanu madaxweynuhu sharciga saxeexay maanu ka maqal xisbiyada mucaaradka wax le war wax fiican buu madaxweynuhu sameeyay maanu ka maqal qaybaha kala duwan ee bulshada iyagoo wax amaanaya oo leh wallaahi wax fiican bay dawladii samaysay kamaanu maqal markii hore aniga baarlamaanka markaan tago iyo xildhibaanada ururadan ka tirsan qaar baa ay qabsado yiraahdo annaka nooma ogolid war wax ku ogolay mawfiqi iyo saaxiibka hadda dawladdu ka tirsan yahay damay dhihinin war wax fiican baa la sameeyay wixii madaxweynuhu waa sharciyay waxa laga yaabaa inay ku murmaan oo had iyo jeer ka hadlaan wax yar oo dalka dan u ah tusaale ahaan waxa la yiri wariyuhu waa inuu isdiiwaan geliyaa qaylo badan baa laga sameeyay ururadana wada hadal baan kala leenahayo kulligay muwaadin Soomaaliyeed baan nahayo waa wada sharaxnayo sida ay ku wanaagsan tahay hadda meel fiican bay noo maraysaa wariyaha la diiwaan gelinaya ka Soomaaliga oo kaliya ma wadankan wariyaal badan oo ajnabi ah ka shaqeeya hay'ado badan oo ajnabi ah ka shaqeeyo midiba u jeedo halkaan u timaado
dee haddaan la kulligii waa laga qayliyey dee haddaan la diiwaan gelinay marka fawdo miyaa dalku fawdo miyaa wixii khayrka ahaa ee wanaagsanaa ee madaxweynaha iyo hay'adaha dawladdu ay go'aamiyeenna wax nagu ammaanay maanu arag wixii aanu doonaynay dalka inaan ugu adeegnana dad badan baa nagu dhaliilay marka Soomaalida waxa leeyahay dawladda waxay u taagan tahay danihiina u taagan tahay waa ka iyadoo xilli doorasho lagu jiro oo dalku dhismayo oo dib u heshiisiin lagu jiro argagixiso la dagaalamayo haddana madaxweynaha iyo hay'adaha dawladdu ay go'aamiyeen warbaahinta dawladda in qof kasta oo hab sharci ah ku taagan oo fikir wanaagsan shacabka Soomaaliyeed u haya wax dhisaya u haya in loo ogolaado warbaahinta dawladda marka waxaan filayaa maanta halkan in xisbiyada iyo qaybaha jooga amaani doonaan dawladda go'aankeeda madaxweynaha go'aankiisa iyo waxqabadka inay amaani doonaan oo haday markii hore nagala soo daaheen maanta hadaanu daahfurnay insha Allah ta'ala ay wax wanaagsan ay u qaataan isla markaana aanu ku infayd garaynayno annako sida la sheegay process ku soconayna in warbaahinta dawladdu siday horeba ugu dhaweyd hadda kadibna noqon doonto warbaahin dadweyne warbaahin qaranka Soomaaliyeed leeyahay warbaahin qof kasta oo fikir wanaagsan u haya shacabka Soomaaliyeed ururada hadda jira markii la sharciyeeyo ay rasmi noqdaan iyo hadda ay ku meel gaar yihiin muwaadiniin Soomaaliyeed oo system ay ku wada jiraan oo siyaasiyiin ku jira weeye inay halkan imaan karaan oo ay wixii fikirkooda wanaagsan dadkooda ku dhisayaan dadkooda ku midaynayaan hogaanka ay doonayaan inay qabtaan ku sharixi karayaan oo ku muuji karayaan in halkan u furan tahay aad iyo aad baa u mahadsantii